jamhuuriyadda Soomaaliland waxay si adag uga soo horjeedaa faragelinta joogtada ah ama faragelinta qaawan ama hadallada kicinta leh ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ku hayso madax bannaanida iyo jiritaanka sharciga ah ee reer Soomaaliland. Waxay mudan tahay Soomaaliland in la ixtiraamo lana difaaco madax bannaanideeda kana badbaado wax kasta oo lid ku ah jiritaanka qarannimadeeda jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ugu baaqayaa dawladda federaalka Soomaaliya in ay joojiso ficilada guracan ee gardarrada ah ee ay ku carqaladaynayso nabadgelyada gobolka iyo guud ahaan dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan leenahay jamhuuriyadda Soomaaliya ee aan jaarka nahay ha ka waantowdo waxa ay ka wado gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudaheega iyo xuduudaheega. run ahaantii xukuumadani ma noqonayso inaynu ka aragno ama ma yeelanayso wajiyadii ay lahaayeen xukuumadihii tan ka horreeyay ku cabsi gali iyo ku maquuni iyo layma joojinayo waxa la isma joojinayo. run ahaantii waxaan leenahay xukuumadan waa xukuumad nabadeed. xukuumadani waa xukuumad garab istaagaysa meel kasta oo dalka ka mid ah iyo degmo kasta iyo tuulo kasta iyo gobol kasta oo abaar baahsan ay ka jirto. reer awdal xukuumadan ka dhisan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadihii ka horreeyay iyo jiritaanka Soomaaliland iyaga leh cidna marti uga ma aha. kulankan shalay qabsoomay iyo kulamo kale oo soo socda waxay ibafur u yihiin ama ay markhaati cad u yihiin siyaasadda qabow degan xasiloon dad isku wadka iyo dal isku wadka leh ee xisbigani wadani uu ku hagayo dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland keenayna maanta madaxweynaha dalkan hagaya sida wanaagsan ee tubta toosan ah ee dawladnimadu ku dheehan tahayna u hagaya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. maanta waxaan halkan kaga hadli doonaa 3 qodob oo gaagaaban oo ah issue hadda taagan. waxaan horumarin doonaa kulankii muhiimka ahaa ee shalay oo taariikhdu ahayd 15 July 2025 ahayd maalin Salaaso ah ka qabsoomay qasriga madaxtooyada. kulankaas oo u dhaxeeyay oo ahaa 3 geesood oo garwadaan ka ahaa martiqaadkiisana oo lahaa madaxweynaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. madaxweynaha ayaa maalintii shalay qasriga madaxtooyada kulan muhiim ah kula yeeshay hoggaanka guud ee 3 xisbi qaran ee dalkan kuwaas oo kala ahaa xisbiga wadani oo uu garwadaan ka ahaa ama gudoomiye ka yahay mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan. 2 xisbiga kulmiye oo uu garwadaan ka ahaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ahna gudoomiyaha xisbigaas kulmiye mudane Maxamed Kaahin Axmed. 3 xisbiga ka oo garwadaan ka ahaa gudoomiyaha xisbigaasi mudane Maxamuud Xaashi Cabdi. kulankaas ayaa diiradda lagu saaray adkaynta midnimada qaranka iyo wadajirka reer Soomaaliland shacabka reer Soomaaliland ilaalinta xasiloonida siyaasadeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo la eegayo duruufaha muhiimka ah ee waqtigan lagu jiro. inta uu socday kulankaas waxa muhiim ahayd in la isla gartay 3 qodob ama 3 point oo muhiim ah oo hortabin u ahaa qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland. ilaalinta nabadgelyada guud. 2 dardargelinta geedi socodka dimuqraadiyadda ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland. 3 iskaashi qaran oo ku salaysan danta guud ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland. kulankan shalay qabsoomay iyo kulamo kale oo soo socda waxay ibafur u yihiin ama ay markhaati cad u yihiin siyaasadda qabow degan xasiloon dad isku wadka iyo dal isku wadka leh ee xisbigani wadani uu ku hagayo dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland keenayna maanta madaxweynaha dalkan hagaya sida wanaagsan ee tubta toosan ah ee dawladnimadu ku dheehan tahayna u hagaya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. intaasaan ku soo koobaya qodobkaas. qodobka labaad ee aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye jamhuuriyadda Soomaaliland waxay si adag uga soo horjeedaa faragelinta joogtada ah ama faragelinta qaawan ama hadallada kicinta leh ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ku hayso madax bannaanida iyo jiritaanka sharciga ah ee reer Soomaaliland. ficiladan ay wado xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya aynu jaarka nahay waxaan si xushmad leh ugu baaqayaa beesha caalamka inay si cad u garawsato arrintan faragelinta ah
ay jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku hayso jamhuuriyadda Somaliland oo ah dal la deris ah dalna sharci iyo akhlaaq midna uma laha in uu ku farigeliyo arrimaha gudaha dal kale oo madax bannaan oo deriskiisa ah Somaliland oo leh in ka badan 30 sano nabad hay'ado dimuqraadi ah iyo dal u taagan ayahooga inay ayahooga ka tashadaan ay goostaan waxay mudan tahay Somaliland in la ixtiraamo lana difaaco madax bannaanideeda kana badbaado wax kasta oo lid ku ah jiritaanka qarannimadeeda jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa dawladda federaalka Soomaaliya inay joojiso ficilada guracan ee gardarrada ah ee ku carqaladaynayso nabadgelyada gobolka iyo guud ahaan dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay jamhuuriyadda Soomaaliya ee aan jaarka nahay ha ka waantoodo waxa ay ka wado gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudaheega iyo xuduudaheegaba waxaan ku soo gabagabeynayaa shirkaygan jaraa'id qodobka saddexaad oo ah abaarta ka taagan guud ahaan gobolka Awdal iyo xeebihiisaba run ahaantii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marka hore xukuumadda uu garwadeenka ka yahay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo fayskii koobaad ama wajigii koobaad ee ugu horeeyay shalay gaarsiisay mucaawino iyo garab istaag iyo taakulayn in abaartaas wixii iyada karaankeega ah bilaadan baa leeyahay ilaahay baa barwaaqada iyo abaartaba labadaba keena laakiin wixii xukuumad ahaan kaga beegnaa in xukuumaddan uu hogaaminayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro madaxweyne ay shalay gaarsiisay fayskii ugu horeeyay oo caawin ah ama garab istaag ah xeebaha gobolka Awdal oo abaar aad u baahsani ay ka taagneed muddooyinkii dambe iyo maalmihii dambeba run ahaantii xukuumaddani ma noqonayso inaynu ka aragno ama ma yeelanayso wajiyadii ay lahaayeen xukuumadihii tan ka horeeyay ku cabsigeli iyo ku maquuni iyo layma joojinayo waxa la isma joojinayo run ahaantii waxaan leenahay xukuumaddan waa xukuumad nabadeed xukuumaddani waa xukuumad garab istaagaysa meel kasta oo dalka ka mid ah iyo degmo kasta iyo tuulo kasta iyo gobol kasta oo abaar baahsaniba ay ka jirto waxaan leeyahay waxaan halkan rabaa inaan aad iyo aad uga mahadnaqo midda labaad maamulka gobolka Awdal oo si weyn oo ballaaran shalay uga gurmaday iyo maalmo kale oo ka horeeyaba abaarta baahsan ee gobolka ka jirta ee xeebihiisa waxaan aad ugu mahadnaqayaa maamulka gobolka Awdal oo gudoomiye ka yahay ama uu hogaaminayo horkacayo maamulka gobolka uu horkacayo gudoomiyaha gobolkaasi ama barasaabka mudane Maxamed Xasan Jaamac Xoday oo xukuumaddan wadajir iyo waxqabad ay u wakiilatay in gobolkaas uu wakiil uga ahaado wax walba oo gobolka ka jirana uu si minute ah daqiiqad ah iyo saacad uu soo gudbiyo insha Allah ta'ala waxa kale oo rabaa inaan halkan uga mahadnaqo madax dhaqameedka gobolka Awdal oo uu garwadeen ka ahaa ama uu hogaaminayo ugu horeeyo mudane madax dhaqameedkaas dhawal oon leeyahay adeer abti aad baad u mahadsan tahay sida wacan qiimaha iyo karaamada leh aad u garab istaagayso xeebaha gobolka Awdal baahida weyn iyo abaaraha ka taagan waxaan ku soo gabagabeynayaa qodobkaygaas reer Awdal xukuumaddan ka dhisan qaranka jamhuuriyadda Somaliland iyo xukuumadihii ka horeeyay iyo jiritaanka Somalilandba iyaga leh cidna marti uga ma ahan reer Awdal laguma cabsi gelin karo cid baa idin haysata iyo cid baa saasa waxaan leeyahay reer Awdal xukuumaddan hadda jirtay wadajir iyo waxqabadna idinka doortay codkiinii iyo cududiinii ayay halkan ku timid udub dhaxaad iyo tiir dhaxaadna waad u ahaydeen kursiga maanta oo madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ku fadhiyo ha u cabsoonina hana ka cabsoonina waxaad sugtaan maalmo barwaaqo leh oo soo socda insha Allah ta'ala waad ka gudubteen 7 sano oo hore ku cabsi gelidii iyo waxyaabihii leedku caburin jiray maanta waxaad leediin xukuumadda aad dhisateen ayaa garwadeen dalka ka ah waxaan leeyahay waxba ka cabsoonina insha Allah ta'ala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته